طبعا صاحبيال wararkii ugu dambeeyay hadii aan fiirino ayagii dagaalka iyo waxyaabaha ka cusub wararka ka imaanaya halka lagu magacaabo Shabeellada Dhexe ama gobolka Shabeellada Dhexe maleeshiyadii argagixisada ahayd ayaa deegaano badan waxay isaga keentay dagaalamayaal u dagaalama kooxdaasi waxaayna ay geysay meelo badan oo ka tirsan suudiinta gobolkaasi uu la wadaago gobolka Hiiraan dhaqdhaqaaqyadii ugu dambeeyay oo saacadihii la soo dhaafay argagixisada ay ka waday Shabeellada Dhexe waxa uu ahaa in maleeshiya joogay deegaano ay dhawaan soo gashay ay qaaday oo ay u qaaday halka aadan yabaal iyo gobolka Hiiraan dariska ay ka yihiin ama Shabeellada Dhexe iyo Hiiraan ay dariska ka yihiin halkaas oo kooxda dagaal culus ama aagag cusub ay kaga furan yihiin deegaanada afarta tuulo la yiraahdo waxay ka soo qaaday maleeshiyad halka geelgub halka la yiraahdo iyo waliba Bursha Sheekh isbitaalka Amora Specialist waxa uu dalka keenay qalab casri ah oo adigoo aan qalin lagu marsin ama dawo lagu siin ayaa laga daaweynayaa hameeyirida ragga waxaan xaadir kugu ah isbitaalka dhaqaatiir PhD sidata oo 20 sano wax ka badan ka shaqeynayay cilmiga cudurrada ragga iyo masaajidka Cali Gaduud maleeshiyad kooxda ay ka soo qaaday waxa la sheegay in gaadiid badan oo kooxda ay lahayd ay isaga kala gudbeen deegaanada gobolka Shabeellada Dhexe sida ay noo sheegeen dad deegaanka ah oo sabab amni dartood aan magacyadooda aan u qarinay waxa la sheegay in gaadiidkaasi ay galeen aadan yabaal kadibna ay kaga sii gudbeen dhanka Hiiraan oo kooxda waxa la sheegay in gaadiid iyo maleeshiyad ay dhoobtay suudinta gobolkaasi Shabeellada Dhexe waa uu leeyahay gobolka Hiiraan Global Fertility Center waxaad ka helaysaa daaweynta xanuunada keena dhalmaanta ragga iyo dumarka ku dooro baaritaano la hubo iyo daaweynta sare leh dumeeriyada waalidnimo oo dooro Global Fertility Center wiiga farxadda lamaanaha booqahada ama ka wac nambarada ku muuqda kooxda culays badan ayaa halkaasi ka saaran kadib dagaal 2 maalin ka hor lagu jibiyay oo ka dhacay suudinta labada gobol ee Shabeellada Dhexe iyo Hiiraan waxaana xusid mudan in badi maleeshiyadkii maalmihii la soo dhaafay ee ka soo gelineysay dhanka Shabeellada Dhexe ay ama deegaanada kale ee Galgaduud ka yimaada ama deegaanada kale ee Jubbooyinka ka yimaada ee way ka soo gudbay haatan ay u soo rareen gobolka Hiiraan wararku waxa intaas ay ku darayaan in goobaha qaarkood haatan ay yihiin kuwa cidla ah oo aysan bajoogin argagixisada kaliya waxa suran deegaanada qaar calankii kooxda ay wadatay waxa jira deegaano kale oo 4 mise 5 oo kooxda kamid ah ay joogan halka deegaanada qaarkoodba ay yihiin kuwa iska cidla ah dadka deegaanka waxay sheegayaan in shabaab culays badan haatan oo ka soo fuulay dhanka aadan yabaal cabsan ay ka qabaan in markasta ciidanka deegaanka ay macaawisley ay weeraro ay ku soo qaadaan iyaga oo taasi ka duulayo waxa la sheegay in maleeshiyad ay halkaas ku ururiyeen sidoo kale kooxda waxa la sheegay in ay yareysay dhaqdhaqaaqii aaga gobolka Shabeellada Dhexe ama suudinta gobolka Shabeellada Dhexe uu la wadaagay gobolka Hiiraan kadib jabkii cuslaa ee 2 maalin ka hor ka soo gaaray dagaal ka dhacay suudinta labada gobol ee Shabeellada Dhexe iyo Hiiraan wixii warar ah ee soo kordha halkan ayaad kala socon doontaan hadduu beedmo xogaha iyo wararkii ugu dambeeya kuwa hormaqla ayaad noqon doontaan idinka Ilaahay waad maasantihiin socodkiina iyo daawashada wararkeena